Somalians ripped off that state for billions of dollars. Billions. Ilhan Omar is garbage. She's garbage. Her friends are garbage. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتوا حيدين هنا أخبار في عن وحستان بعملنا ترامب مركو الصومالي وهالك سكعيني وعيد الساس ودلدلية وأفك أبرك كسيديني سيدي رتيب أغاني وكلا معلومها إنه حويه أحسق بفرغ الودي ونفسي سوء بغية مركو الصومالي وحويه أيانتي وعيني يحضر لفتي هذا وحويه وحوله بدك إن سكسي جديد صوبته أحسق بعشان كذا إمامها كنت مركو مرة فوقين wararka iyo sida wararka maqasheen waxa la soo saaray faylashan oo ku saabsan ninka la dhaho Epstein oo mar dhow xabsiga ku dhimanayay ba faylashiisi dawladda Mareykanka ay soo saartay marka faylashiisi waa kuwana qofkii raba waxa weeye saas bay yihiin linkiyada hoos ku jiraan marka faylashii baa dadkii dhan loo soo saaray boqolaal kun way 900 kun way emailka oo uu lahan jiray oo ku shaqaysan jirayna waa loo soo furay dadkii oo dadku dhan waa akhrisan karaan marka linkiyada hoos ku jiraan hadaa rabtaan marka faylashiina qaar baa soo saaray qaarna waa soo socdaan saan ugu jiraan marka hadda waxa sii dhiman 1 milyan oo file oo kale in la soo saaro baa la sugayaa marka Trump waxa ay tahay ayaantii hore waxay ahayd dadkii inuu arrintan ka sii jeediyo sababtoo ah faylashii waxa weeye niman badan baa waxa lagu soo ogaaday dambiyaal in galeen baa lagu soo ogaaday marka wuxuu ogaa meeshan in wax laga soo heli doono oo wax dambi in lagu soo heli doono boga marka sadarteed buu Soomaali u caynay siin dadku isku sii jeediyo laakiin sax weeye arrintan waa arrin weyn weeye si walba aytan si walba marin hawaabin dadku ugu sameeyo waxa tan dadka kama sii jeedin karo waa arrin la sugay baahay marka ninkan intuu jidaan Epstein balha maalqabeen baan jiray haddana inta iska lixta ma hayna xabsi baa 2008 baa la xiray waxa lagu xiray in uu dhowcilaha oo qaangaarka ahayn inuu farxumeeyay wadana uu qaar intuu soo gatay inuu nimanka maalqabeenka ka kirin jiray bal soo gaaday sadarteed baa xabsigu galay marka faylashiisi marka xabsigii inta la gelin maxkamad baa la geeyay maxkamadii inta socotay faylal badan baa soo aruuriyay marka faylashii oo maxkamadii socotay markaas la aruurinayay waxa dadka loo soo deynaya marka faylashii markii dadka loo soo daayay niman badan oo aana qaarkood ay madax yihiin qaarkood maalqabeen yihiin baa dambiyo ku soo baxday marka waxa weeye maalin walba file baa la soo ogaanayaa nin dambi baa lagu soo ogaanayaa in uu gabdho laga gedi jiray gabdho aan qaangaar ahayn in la gedi jiray marka niman badan baa la soo ogaa qaarkood waxa weeye shaqadii bay waayeen marka nimanka oo dambiyada lagu soo ogaaday waxa ka mid ah Bill Clinton waa taqaanaan baa malaynaya waa madaxweynihii hore dalka Mareykanka buuxin jiray asaga iyo Epstein saaxiibo runa bixin jireen soo jeedaan ya gurigiisu ugu imaan jiray isla safri jireen laakiinse Bill Clinton wuxuu ka heli jiray baa dhahay gabdhaha underage-ka oo qaangaarka ahayn buu ka heli jiray baa dhahay marka gabdhihii oo la kirin jiray baa lagu masuuriyay mujidaan ya waxaan waxa weeye kulli waa gabdho aan qaangaar ahayn weey marka ninkan Epstein la dhaho asaga jaajuus buu ahaan jiray dawladdanka oo Israa'iil la dhaho buu jaajuus ahaan jiray marka nimankan intuu masuur ka qaado buu marka ayaga ka gadi jiray marka ayagii baa blackmail ku sameyn jireen oo waxay doonaan bay ka soo saarin jireen laakiin se faylasha la soo saaray waxa weeye nimankan dambiyadoodii baa soo baxaysa haddana intaas kaliya ma ahayna niman badan oo madaxa baa la soo helay qaar waxa weeye waa billionaire weey waxa ka mid ah nimankaas Bill Clinton mujidaan asaga iyo dumarkii gabadha laga dhaxtaa la lama soo mujida haddana intaas kaliya xitaa ma ahay Salman waa taqaanaan waa malaynaya la soo ogaaday waxa kale la soo ogaaday ninkan Sulaim waxa weeye dadkan aqoon waa taqaanaan baa malaynaya dekedaha Soomaaliya ku yaala ay ka mid yihiin Garacad Boosaaso Berbera wax lagu reejiyay kuwan qaadaqaatayaasha oo madaxda lagu sheego waxay ku reejiyeen Imaaraadka oo shirkad DB World la rabo lagu reejiyay marka DB World ninka Mareykanka kan way Sulaim baa marka Sulaim iyo Epstein saaxiibo runa bay marka Epstein's emailka hada gashid oo fiirisid linkiga hoos ku jira waxa weeye halkaas waxa ka soo baxaysa in labada saaxiibo runa ahaayeen baa ka soo baxaysa haddana intaas kaliya xitaa kuma keen nimanka madaxa baa imaan jireen guriga Epstein oo gabdhaha qaangaarka ahayn laga gidi jiray mujidaan waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare baa ka mid ah Fidel Castro
waxaa ka mid ah ninkan la dhaho Steve Bannon inta wijdaan wuxuu ahaan jiray la taliye buu ahaan jiray Trump ninkan xitaa nimanka oo meesha imaan jiray buu ahaa oo dumarka laga gidi jiray kan waxa la Summers baa lahaa kan soo inta wijdaan waa nin maalqabeen Ingiriis weeye mujdan kana filmaanta uu nimanka oo filmaanta dhiga weeye guri Alan baa lahaa labadan mujda labadan guriga Epstein kama qaaji jirin baa labadan waxa way dadkan aqoon kan midigta taagan waxa way Andrew baa lahaa boqorka Ingiriiska walaalkiisa weeye kan kalena waxa way waa Bill Gates baa lahaa oo ka mid yahay 10 qof oo ugu taajirsan adduunka ka mid yahay marka labadooda guriga Epstein kama qaaji jirin baa mar walba taagnaan jirin niman kale baa soo ogaaday oo Epstein saaxiibaha hayeen qaarkood waxa way shaqadii baa laga ceeriyay faylashi la soo saaray darteeda oo arintan ka shiftay marka dadkii oo shaqooyinka waayay waxa kamid ah ninkan inta wijdaan ka halka fadhiyo shaqooyinka xiran waxa weeye mar dhow buu wuxuu ahaa safiir buu ka ahaa Mareykanka oo wuxuu safiir u ahaa dawladda Ingiriiska marka waxa la soo ogaaday asagii Epstein saaxiibaha marka sadarteeda shaqadii waa laga ceeriyay haddana nin kale oo la soo ogaaday waxa kamid ah ninkan waxa weeye Mick Jagger baa waa nin heesaa weeye marka asaga dadka oo heesihiisa xiiseeya waa ku xanaaqeen marka la soo ogaaday in uu ninkaas inuu saaxiibo lahaan jiray inta iska dhigta maahay nimankan oo inta wijdaan waxa weeye kulli waxa la soo ogaaday inuu video ka duubay waxa kamid ah nimankaas Bill Clinton iyo Andrew waxa weeye waa boqorka Ingiriiska walaalkiisa weeye marka ninkan Epstein la dhahayo iyo Trump saaxiibo runaway meel walba oo mid ku aragtid kan kalena taagay marka isla socon jireen khaladaadku isla gali jireen dambiyadu isla gali jireen marka Trump waxa weeye nervous buu aad iyo aad u baqaya maalmahan wuxuu aytamiyay dadku xurayay inuu marin habaabin ku sameeyo si loogu sii jeeso laakiinse tan waxa weeye ay walba uu sameeyo dadka ma sii jeedin karo marka asaga iyo inta wijdaan iyo Epstein saaxiibo run ahaan jireen mujda xitaa Epstein dumarku buugadi jiray wallahi mujdan Trump xaaskiisa Melania asaka gaday baa mujda waatana iyadoo la xaysiinayo website lagu xaysiinayo oo dadka maalqabeenka loo xaysiinayo oo la dhahayo kana qoftaan baadin hayna gata amal kale labada qof inta wijdaan labadood baa la xiray oo xabsi baa lagu xukumay marfog marka qoftaan Maxwell Glenn Maxwell hadda way noosha xabsi lagu jirtaa ninkan kalena asagana waxa weeye Trump saaxiibkiisii weeye marka asaga 2008 baa la xiray asaga waxa weeye 2008 baa la xiray waxa lagu xukumay in uu gabdhaha oo qaangaarka ahayn oo faraxuman jiray oo haddana uu ka gadi jiray nimanka maalqabeenka marka waa kaas asagoo xabsigii taagan oo soo laga qaadayo laakiinse asaga waxa weeye waxyaalaha uu ogaa waxa weeye emailadiisi baa mar aan fogin dadka loo furay marka emailada waa kan message-ana baa ka soo baxay marka wuxuu dhahay inta wijdaan dambi baa ku ogahay Trump marka soo dhahay 2018 baa mujdan marka Trump khaladad badan uu galay baa ogahay buu sirtiisa dhan baa ogahay buu marka soo ninkan u hadlin waa la dilay mujdan marka waa soo nool waa soo dhintay marka waa kaas xabsiga qolku ku xirnaan jiray marka waxa weeye asaga isdilay baa la marka ninkan waxa weeye Trump uu ka baqay marka sadarteed baa ninkan loo dilay marka Trump waxa weeye sheekadiisa maalmahan ma fiicna marka waxa weeye sheekada ku xunta